wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qaybta afraad ee sheekadii filan waa hurre waa nin ciidanka bilayska ka tirsan wuxuu hurre qabaa sabaad walaasheed xaajiye barwaaqo iyadu waa islaan aad u kulul hurrena inta badan aad moodid inay hadallada ku kulkulayso hurre isagu waa nin khabiir ku ah dhinaca baaritaanka ciidanka booliskana muddo dheer ayuu ku jiray haddaba hurre waxaa ka yaabisay oo feker iyo walaac ku abuurtay gabadhan yara dumaashidiisa ee sabaada oo u arkay had iyo gooraale in xaalkeedu aanu caadi ahayn ويابنيو أرنتن وأرياب لوي أما كاقوي نيو كبرنا محاكو دعيني بروبلم كان هيستا حاجة كان هيستا وفكريسا وسلها الليسا عنتعوني ميسو حبر شاهدي ميسو وحقرسان ميسو بروجرام كده وخلدين يعني والله وآد بقية بي أرنتن أنا كنا waxay ugu furtay mushkilad sababtoo gabadh yar oo aad ugu uruuliso oo markasta aad ku mashquulsho waa fikir aad u wareersan weey wallahi abuy aad baan uga xumaa wallahi inaan ku mashquulo dhibkan haystani wallahi yaa banaan ilaa hadana kuman guulaysan inaan ogaado wax badan ka ogaado hurre arrintaasi aad iyo aad bay uga yaabisay waa khabiir dhinaca baaritaanka maadaama uu yahay hurre nin booliisa wuu dareemi karayaa gabadha halka laga haysto wallahi waa yaab markaan si kasta uga baarandegay fiiriyey meelo badan ka fiiriyey waxaan shakiigan jirin in gabadha jacayl hayo balse anigu ku degdegi maayo waxa ilaahay soo shaabaan laguma degdego sheegitaanku hurre arrintaasi fajac iyo layaab bay ku abuurtay barwaaqo oo sabaad walaasheeda ayaa iyada laftigeedu xogaa uu dareen gabadha ka galo oo ay dareensatay barwaaqo waxay u timid hurre oo isla hadlaya kolley wallahi xaalku si buu noqonayaa waa si baa u dhacaysa laakiin waa la yaab wax lagu fikiro hurre haye maxaad isla hadlaysaa maantana xaaji haye nabad way laakiin sidan baad caadi ku tahay iska caadi weeye waa sheeko yar baan galay no problem taas waa la iska galaa caadi weeyaad weligaa tiraada intaad faraha taagto meel cidlaa fariisato sidee ku dhici kartaa ma caadi baad sidan ku tahay xaaji stage maxaad ka fikraysaa ii sheeg bulaxa ku kulleeyay wallahi waxay wareeriyay wax kale maaha gabadhii sabaad ahayd wey oo sabaad maxaad ku aragtay wallahi yabanaya aawe xagee ka waran bal adigu ka waran xagee ku dambaysay dee annagaadna weydiinaysaa mooji meelay jirto anaaba ka yaaban qudhaydu maxaa isla kululaynaysaa iga waran gabadhii xagee jirtaa war cuntadii diiday oo seexan weyse oo wax ku dhaca mooji dee see loo hayaa idabdaray kollay bilowdaan u malaynayaa maxaa problem oo jira markaad kur gasho war wax laga xishoodo baa meelaha laga sheegay waa maxay waxaas dee waxaan maqlay caashaq iyo qurun iyo waxbaa la sheegaya inan yar bay meelaha ay indhaha ku haysaa aysan ka harsan karin baan maqlay waa wax jira wey taa macquul waa suurtagal wey maxaa macquula ma waxaasaad jilcinaysaa aad leedahay waa caadi see ka yeelaa balada xalinteeda see u xalinayo war xalkeeda anaa aqaana si kale ma lahan madaxaa laga xirayaa gurigaa lagu xayirayaa iskuul baani aadan meel kanaysa qabanaynin shaqadeeda anaa aqaana suurtagal maa de xaaji qofka maxbuus ma dambiila qofka waxbaa loo sheegaa si waxaa taa ka ron inaynu marka hore la talayno ila qofku qofweynu qaangaadha weye haddii markaa ayna ka diido tallaabadan qaadayna markaasaa ka tashan lahay nin weyn baa tahay gabadha hadday berri halawdiyaa loo haystaa waa adiga jilceeca muujinaya war gabadhan aanu xirno oo aanu ulayno asxaan ma lahan dhoocishii qofku waa qaangaadha ogow hadda ma in la caburiyo kuma fiicna adduunka hadda wuxuu maraya in wax laysu sheego oo wax laga dhaadhiciyo qofka adaa un mas-uuliyaddeeda qaadaya ha halawdo keligay ma qaaday laakiin waana wixii aynu sida ugu macquulsan aynu u qabano wey gabadheenu wuxuu ku sheegi karo kolley aniga waxaani marin jacayl iyo wiil xun bay rabtaa iyo meelay socsoconaysaa iyo wax qashina waxaas aniga ima maraan adeer
brofesor daahir isagu waa hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed brofesorku haddaba in badan waxa uu ku celceliyey in ardayda qaar ka midii ay jabiyaan shuruucda jaamacadda u degsan waxaa kaloo soo dhowaaday xilligii imtixaanada ardayay may maqlaysaan waxaa soo dhowaaday xilligii imtixaamka waxaa laidinka doonayaa inaad la timaadaan dadaal qofkaan dadaalina imtixaamku waa uu ku harayaa midda kale waxaa isoo gaaraya dhowaanahan oo dhegahayga aan ku maqlayaa in qaar wiilasha ka mid ahi ay wadaan gabdhaha geeyaanna qolalka ay inamadu degan yihiin arrintaasi qawaaniinta jaamacadda ayay wax u dhimaysaa mana aqbalayno gabdhuhu ma tegi karaan qolka inamaduna ma tegi karaan qolka gabdhaha sidaa daraaddeeda waxay isugu imaan karaan oo keliya galaaska layla caamir waa gabadhaad wada taqaaneen jinka ahayd layli inta badan magaalada ayay dhex wareegtaa iyada oo qof caadiya oo dadka kale aadan ka dhex garan karaynin waana gabadha ugu shiddada badan marka la eego caamir inta uu dhalay hal wiil mooye waa inanka ku nool deegaanka afgooye haddaba xaafaddan booliska waxaa degan laba inan oo la kala yidhaha dabcasar iyo dibindaabiyo maanta ma joogo laakiin dabcasar isagu waa nin dhibaataynta dumarka ku caanbaxay waxaa la yidhi geelow soco maalintaad ciin daaqdo ayaa lagu yaabaa layla caamirna waa gabadhaad wada garanaysaan iyada oo magaalada maraysa ayaa dabcasar maagay tala maxaa dhacay allahayaay walla maanta mid sidka soo martada arki lahayda abo wato jira waryaa walla day ad fiirsa isu walaaqdo balaayaa ka dhacday waryaa kub ku yaala naagta wallahi ama yeera tanoo kale lama naxariisto allayla tan waa inaan dhibkeeda kabteeda korogadiya ayaya hoy day si dhigtiraysa fiir hoy yaray هذه أسوكا معنا كان أسوكا قالينا لا يقول عليه وامحي وحن عيال سوقه هلا ورا يلا هلا صادق هذه أسوكا قايمين بلا سكر لا أقول الله يا وهذا الكخصب مية هذه خصب اليوم أبغى قف هذا قرنا نسوي ده يسأل هذا سست أسكلنا في قفته هذيك أقول استحافظ أنت كتير والله واقع حما أبو أنا أذاك لما الله هلا ما بده هذيك والله أيوة ما كنت فرصة والله ولا كعادك ما بقى قرنا يسأل هذا الشيء ما الكلام ده واقع حما يا قرب رتيل أسقالين محكو درنا هذا محكو قف هذا يدرنده مساكين إلهي باتها مسكين إلهي الله واتها أبو مسكين إلهي واهي ما لك أنا أديك هذا طلع مكاسو أسقالين إلا هذا أديك سيس أباي هذا تيسو قرصة أيوة كل ده أسقالين رتو كل شيء ده هذا باع كجلع سنة أرض جيتك ترتيب أمره كلها هذا سقي قيمة بلاه نيجا حد وباه حيران بدوبك حنكو قدنا أنا كو باهنا هاي سبرش الله هاي عم بضيع هاي أو عنص باهنا غفي عن حدث مع سنه أنا واحد بنقول شيء وأنا كل طلنا يا ولي بقى قفك هدي أبن قرنين سيد ما بلقول لك دقيقة سكداف أنا هدو أن كاتجيا وأنا كل طلنا يا مركا أنا دقاقه هيك ده بحلين أنت سوى طلب هذا بحلان هذا ما غلين يا ولي بنقول maxaa sabab أنا أقول رواضه ده kuma doonay aniga ma qasab aqoon iimilid waxaan ay ma garan aniga Soomaha way hayo nabadiya way balmaan sanday naalo in baahan ba siiriyada saay ee kaale soo yari la kaalaya hada asbaab qaali balaas ka dhigana kaale yahay kafir ku sheego ada horta indhaha iga tartiibi iga jeedi indhaha waa adiga wiliga qof qurxoon ma arkin miya horta adiga waa kala yaabanaayba maxaa kula noqdaa adiga bismillah hay kala hadaba aan wax ku sheego aniga gabar jinniya hay ugu qatalmi يري ولي جيدا قصة أنا واسم يسد ماني واسم كتير جني هذا تعرفينها أنا هذا بجنيا هاسكسو دين مرتين أنا هذا ويل سوماليات ما دام هاي أو إنسي وكان حريصنا أتحام بنكوفلا يبعتوا كل مرة لكن وكل شيء هذا بقى هاي قد بهل المرتين هذا قد بهذا شو إن ده هذا هرتود إن أفكو أركيسو عادي هانجتي لانجتي لغة فردان هانجتي هذا هو كاهري ماي أنا ووري
قصة بالآدم وهبة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ورواي سوق الشيء المحل روح إنا لله وإنا إليه ووري والعرارة ورنا عرواي ورنا عرواي soo hore kuguma sheegin aniga welioo caga dhigo guuxaadan ha ka dheeraanin waa digniinta ugu dambaysay waan kaa tegayaa haddii aan juuqdaada dambe maqlo adiga waayo ha ciao حتى شغلة والله كهري بالله طلع والله ما لا شغلة ما كهرة والله كهرة ha iga daba hadlin soo kuma dhihin yaa miskiin ninkii dabca sarahaa wuxuu dumar dhibaba ma hadday gabadh jin u geysay oo maxaa ku dhacay waxaa la yidhi geeloo soco maalintaad ciin daaqdid ayaa lagu yaabaa dabcasir dhirbaaxo kulul ayaa ku dhacday oo dhulka ayuu kula dhacay wax yar kadib ayuuse soo hambaabiray oo wuxuu maxay ahayd jinni bay ahayd yaa إليا لا إله إلا الله محمد رسول الله يدش نافته وتقبح بسم الله الرحمن الرحيم وريا ما حق إبر ور بسم الله ورنا تفحي لا خطر يعني إنا لله وإنا إليه راجعون متشني ما قورت رجال وحان صعوبة وتتيل ليشري تشنيو مركل العود بليستو وعرر شري وتتيل ليشري تشنيو وحليه الواحد دمير كوكله أو حمل هايله ورسي عمر روح ورسي لي قالاني يا أدك بعدي ها ولا نقدر ما يقعدين لكن أنا ما أسكت فيرني يعني أنا كحنا قاعد حي حرش أنا وجهي لو أنت بتكلمني مرة بالبنا وقتاسي نعم وأنا مرة بس كوارتية حدي أدك بعدي قادو وأنا أسكت عيا لكن وين أركو مركا أنا أركو كعود بالليستا هتيجي عود بالليست وكعروض أنا كل حين أسكت باروا بيقولوا ذي شيطان كذا وحي وطن هاي تي هذا ويقعد ما تشركي هاد وعم بها اللغة يوكل واكد ما شاء الله naagtan waa way gaaday badna ma gaad doon naag buuray ilaa qurux baa iska ilaalin doona ana ugu warkan ay laakiin marda ma dhici doonto ana ku dhahay naag damba wala ma gaado kuliyadda beeraha imtixaanadii ayaa soo dhawaaday kuliyadda beeruhu waxa ay ka mid tahay kuliyadaha hoostaga jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ardadana badanaaba imtixaamada laba qaab ayaa looga qaadaa marka hore waxa laga qaadaa imtixaan la yiraahdo iskrito ardaygii iskritada soo gudba ayaa markaa wax laga qaadaa imtixaan la yiraahdo oral examination si kastaba ha noqotee imtixaamadii ayaa imika soo dhawaaday ardayduna waxay aad uga walaacsan yihiin oo ka walwalayaan imtixaanadan soo dhawaaday farxaan wuxuu ka mid yahay haddaba ardayda dhigata kuliyadda beeraha waxaa la walwal weyn ku haya maadaama xilligii imtixaanku imika uu fooda kusoo hayo imtixaankiina waa uu soo dhow yahay maadooyinkiina maanan akhrisanin maalimaanna waa jirjirnaa waanaan dadaalaa oo kaalimaha ugu horreeyaan galaa kuliyadda beerahana waa iska dhib adag tahay marka loo fiiriyo kuliyadaha kale dhibaatooyin ayaa isa saaran maadooyinkiina waa isa biologigaaba ugu daran meelaan ka maro kaala sheeg beer iyo qodow beeral maasha allah waa kuliyad fiican sidaan filaya dhibaatooyina isku koray dadka aan ka baqay waa laba qof inay kaalimo ay galaan horta dadka kale waan ka wanaagsanahay laakiin waa kaalimaha ugu horreeya inaan raadiyaa weeyaan hadalka marka la isku soo duubo 1 iyo 2 waa ina raadiyaa salaamu calaykum farxaan oo ku salaam وعليكم السلام tahay maxaa kaligaa wadada isla hadlayay warniyo imtixaankii beeraha kuliyadii beeraha noo soo dhawaan iska adiga maalmahan waa jirjiranayo maanan aadin meeshii marka duruustiya iska korkortay xogaa imtixaankan ka fikiraa dhibaato kale ma jirto imtixaanka horta waa wax wanaagsan in laga fikiro waayo waa ayaha waxaad adiga aad qaran lahayd waa garto waa wax beri adiga ku anfacayo iska barashada laakiin wax kaloo jiro macnaha problem ma jiro mayo intaas waxaanan ahayn oo fikira ma jiro waa la fiican yahay inta kale waa iska fiican tahay laakiin imtixaankaas yaraan xogaan isku mashquulinayo oo kaliya xogaa maadaama uu imtixaanadii soo dhow yihiin maalimahan aan iskoolka ka maqnaa in xogaa duruustaan isku qaban qaabinay sidaan usoo urursan lahaayo maadooyinka biologiga wax igu adaga jiro inta kale hadii la fiiriyo way i fudud yihiin casharada jaamacadda wax ka sareeyo oo ka sii xageeyay ma jiro isha ma waa fiican inta kale waa fiican haddii adiga wax kugu qarsoon waa gaar horta arday baa tahay kowdhe ma waxaad igu ogtahay waxaa laga yaabaa inuu jacayl ku hayo jacayl maya jacayl waqtigiisa maanan gaarin allah ay gaarsiiyo waqtigaas jacaylka qofka haya dhaayihiisa ayaa laga garanayaa xasmaad keentay jacayl baa kaa muuqda adiga hadda
maxaa wejiga muyga qoran yahay maya xoogaa calooshaada maaragtay waa welwelo yani hadalladaada ha iyo micnaha markaan may ka bix waxaas ka bixin waxaad moodaa inuu jecel ku hayo xoogaa nin waa jirnaa maalima madaxan oo iska xanuunaya marka imtixaanadan ku mashquula maahe doono iyo bajaaq iyo waqtigeeda allah na gaarsiiyo markaan jaamacad dhameeyo iyo markaas allah na gaarsiiyo taas way wanaagsan tahay hadduu allah ku gaarsiiye balse wax kaloo jira ma jiraan miya hadda maya wax kaloo jira male imtixaanadan waa iska adag yihiin marka loo fiiriyo kulliyadaha kale waa kuwa iska dhib badan ee dhibaatooyin kale ma jiraan saaxiib wax dhibaataa iminka waxaad sheegaysa jacaylka meesha kumaba jiro waa wakti kale allahna gaarsiiyan dhihi karnaaye war farxaanow ha baryahan jaamacaddii aan la foolay waaba lagaa waayay maxaa see wax u jiraan waa xoogaa xanuun iyo imtixaankaan ku mashquulsanaaye laakiin bacda alimtixaan waan iskugu imaanaynaa caweyska kabankeenina noo soo qaad meeshaan ku baashaalinaa bacda alimtixaan iminka imtixaan aan isku mashquulinaynaa 2 isbuuc kadib baashaalkeena horaan kasii wadanaynaa oo la foole oo hadda imtixaanka ha maxaa dhigi doontaa adiga haddii lagu imtixaamo mataqaa jaamacadda hadda imtixaanka lagu soo hordhigo maxaa ugu jawaabi doontaa adiga Lamumba iyo 54 iyo Garden wareegi jirtay niyo waa iska dadaala habeenkii aan wax akhristaay adiga waxay arki jirtay maqribkii habeenkii 6 saac wax akhristaa aniga habeenkii liido waa waxa ka dhigtay niyo naga dhaafniyo adiga niyo war maqribana da wareegay aragtid 4 saac wax akhristaa aniga niyo meesha adduunka waa la isku kala wadaa qiiq camal waay badda waa meeshaan dhageyso hadda caawa talaado waay discoteca waxa ka jira Lamumba 3 marka saan ku aadna noo sheeg war caawa ma aadeenayo caawa imtixaan iyo wax diyaaris iyo xogaa guri adeerkiina waa rabaa inaan soo salaamo ma gaaray kaas ma ka gaaray baad imtixaan allah na gaarsiin markaasaan baashaalayna abti waaya kowdhe allah ku fududeeyo ani kulli hadeertaan waxa isku diyaarinayaa caawa caweyska sidaan ku aadi lahaa baad imtixaan caweyska meeshii la foola imaanayna wixii aad soo heli kartid oo gabdha iyo sa sheekaysanoo sheekada noo macaanaato lacala imtixaanka hadda ku baas dhageyso imtixaanka hadda ku baastid maxaa noogu talagalaysaa oo baartisa maalintaas caweyska ana isaarintii habeenkaas ana ku casuumanaa habeenkaas ana casuumantiin hadduu alla yiraahdo waa dhamaatay ogle jimcaale iyo cibaar waa 3 oday oo saaxiib ah inta badanna meelaha waxay isugu yimaadaan fadhi ku dirarada ama masaajidka ay aalaaba ku kulmaan laakiin 3da oday waa 3 nin oo sheekadu ay isugu baxdo cibaar wuu maqan yahay oo wuxuu gaadhay afgooye waa nin beeraley ah carruur yarna uu leeyahay tacab ayuu imika ku jiraa waxa la joogaa xilligii roob da'aaga waxaan u ambabaxay sidii beerta uu u soo beeri lahaa guriga ogle waxaa hormara jidcaddo weyn oo sodora ogle haddaba wuxuu go'aansaday in uu gooyo waddadaas ugu yaraan kala barkeed waxaanuu waddadii ku gooyey oo markaa uu meesha ka qoday godad isagoo tiirar ka mudaya ayaa waxa meesha ugu yimid jimcaale maxaa dhacay war ogle war maxaa dhacay ma haddaad waxa keenta haddana inaad wax kale ka soo tagtay inaad waddooyinkii muslimka oo mari lahaa inaad goyso maxaa tiri wili dhagoolnimadii maa ku hayso jiglinimadan war waxaan ku idhi waddada maxaad u goynaysa waddada maxaad u goysay waddada ha horta waa kuwa adiga intaanan kuu jawaabin ku arki maayo soo dhawowba de soo dhawaan si fiican kuu eege warka isii aniga jimcaale waaye jimcaale war jimcaale ma nabad ba ha ilaahay baa ku keenaya bal waran dhiblow aad tahay dhagoole nimaad ku darsatay intaad ku darsatay haddana maye qorax baa jirto marka sidaasaan xoogaa aan gacanta indhaha u saaro aanan waxba u arkayne bal waran waxaaba ka yaalaaba waddadan aad goynaysaaba war ka yaalaaba muxuu yahay waddadan aad goynaysa yaa baabuurta meelay maraysa male aawey waddadaad sheegaysaa tan jidkan oo meeshan majid baa dadka marmaro loogu talagalay maxaa baabuurta uga jaraysaa ma meeshaana wadda baabuur mardhig la waa reer baadiye haye mar meeshaana wadda baabuur ma aha maxay tahay dadka marmare ayaan dhaweyd ayaa baabuurtu nagu baratay marka ciyaalkay naga jiidayaana sidaasaan uga jaraya hasha oo baabuurta waxaaba u diiday inay xaafadda soo dhex galaan hadda meeshu ma meel baabuur loogu talagalay ba horta maxaad niyow reer baadiye isaga dhigtaa baabuurta ka sokow gawaarida biyaha gaari dameerada biyaha halkay soo gelayaan hadda iyaga laftigooda soo taayira ma leh carruurtay naga jiidayaane war see way oogle see ilaahay kaa dhiga yaaqe
deriska hataa haddii meed oo galo meel laga bixinayo male see waaya mar lug baa lagu bixinay horta adigu horta niyow sidaaduba shida abuur baa tahay waa ku fahmi lahaye jimcaalow ha ayaa deeb aad horta u shaqaysaa adigu war aniga hay-adda hay-adna uma shaqeeye ee waxyaabaha aad samaynayso ayaaba ka dari ah haddana jidgooyo ma keentay qaadacul dariiq la sheegayo maa naqat war anigu hadda jid ma goyne meeshaan waxaan ka baqay carruurta aniga kuwayga iyo kuwa deriska maaragtay in baabuurta naga jiidhaan ka baqaya marka adigu baabuur wadda malaad ka hadlaysahay carruur dhan oo waaweyn ayaa doonaysaa in baabuuru jiidho sow ma war horta hay-adeed u shaqaysaa adigu war aniga hay-adna uma shaqeeyo ee waxawaaye waxyaabaha aad deriska iyo maaragtay xuquuqul insaanka iyo bini aadanimada aad ka gelayso ayaaba aniga aan la yaabanahay nin ciraaho nin weynaho yacni maaragtay gar qaadayo ayaa tahay waxyaabahanito yani inaad iska dhaaftay bay ahayd adiga dadka aad ka waani lahayd aad ma kusoconay ilaah baa og oon waa jimcaale horta waa kaa shekiye meeshaan maaragtay anigu hadda sandaqad yar baan horta ka dhisaya anigu sandaqadaasna waxaan uga dhisayaa si aan maaragtay baabuurtii aanay u soo marin marka waxa weeyaan horta anigu jimcaalow waa kaa shekiye horta anigu aye ninka hadda igula talinaya meeshaan baabuure ha marto carruurta baabuure ha jirto waxaad allaan kaa shakiye jimcaalow dhegayso maxaad carruur laysa maya aniga carruur ma laynin ee deriskii maxaa way gaari dameer xataa meeluu kasoo gelaayo male baabuur meelu kasoo gelaayo male hadda calaa iyo xaal nin oday ah baa tahay annakana derisaan nahay walaalaan nahay fuji yaaqay fuji bal iscaanakum fuji dariiqan fur maxaa tiri fur dariiqan war maxaa tirina meeshaan fur waa kana fur meelahan ma waddadaa la furaya ha waddadan fur alla ilaahay taas waa calaacadiba ka soo baxeen waddadan fura horta kowdhe ciddii isku dayrana ya dagaalkaygay doonaya ogle maad ka daysid waddadaa la furi maayo waxaan ku yidhi adigu horta waxaad iiga warantaa ayaabahan suuqa xoogaa waxaad moodaa raashimadu inay kacsan yihiin sideeda horta wax u jiraan raashinka raashinka waxa la waaye badeecadiisa nin kastaba badeecadiisa siduu doonuu ka yeelanayaa laakiin horta waxaan ku yidhi culammadana waxaan ka maqlayay ganacsiga diintu waxay u ogoshahay riix yar inay saartaan hasha oo maanta diintaaba la soo galaguye niman hadda aan arko oo ganacsataha waxaa la yidhi nin walba waniga wax ma sheegi karaya nin walba wuxuu doono diinta wax ma ka taqaanaa anigu diinta waa garanaya si wanaagsan baan u garanaya yes alxamdulilah haddaaba diinta wax ka taqaanid nin fiicanaad tahay ma garatay adiga ganacsigaas intaanan gaarin jidkan aad gooyayso diinta ma qabtaa waay adiga horta jidka yaa maraya dad dadku hadda waa kaasoo meeshaa dhinacaasaa banaan ay marayaan ayaa kaloo maraya waxaa gaari dameeradii usoo geli lahaa iyo guryaha haddii meed dhaco baabuurtii la saari lahaa meel laga saaraa male waa kan dhowr iyo 5 kiilo 4 kiilo aad maaragtay wararta anigu dad wax waa u ogolaah haye laakiin baabuur iyo baabuur dameer kuwaas dad maaha kuwaas maaragtay carruurtay naga laynayaan marka dhinaca diinta hayla aadin dhinaca ani waxba kama ogoli haye marka waxa weeye in carruurta la jiiro raalli kamay miyaa doonaysa carruurtaada in baabuur jiro waaya haye ganacsatadan iyo raashinkan haddana maxaa kusoo geliya maxaa kartaan hadda maya waxaan la yaabay maalina weyd masaajidka horta maalinabaduba nala joogta masaajidka markii shiiku lahaa culammada waxaa loo ogol yahay nimanka ganacsatada ribix yar inay raashinka ku darsadaan war iska aamus meesha ninkii loor beriisa keena 50 kun hadduu ku soo gaday 400 kun buu kusii iibsanaya wixiis asma iskalo hadduu leeyahay aakhiro sidee loo xisaabinaya ninka caynkaasa waxa waay see la yeelahay adiga waxa waay oglow dadkaasoo kale inaa laga shaqeeyaa la rabaa adigana dariiqaad gooyo haysaa dadkaasoo kale oo yacni saas sidbursiga qaadanayo ee masaakiinta dhiigoodii jaqaayo ee beriis dhacay sokor waxa maaragtay wax kastoo dhacay caano dhacay sharaab dhacay kulli keenayo dadkaas inaad ka hadashaa la raba yaaq ogli yaaq war jimcaale waxa weeye anigu horta nin ganacsada war waa ora lahaa laakiin horta gurigiisa siyaad ku tegaysaa ciidan baa ka sokeeye maya baqaaradaa loogu tegaa baqaaradan hadda waxaa baabuurta tiknikada a taalla caano dhacayaa yaal saliid dhacdayaa taalla haye oo dibadaha laga keeno yaa dhacayna yaa wax laga dhacay maya muxuu ahay aan la cuni karno yacni wadamadii soo saarayba ay soo naceen reerad ma qabiilaa wax kala dhacay maya war iwad marka adaaba sheekayahaye qabiil jeclaa war goormay wax kala dhaceenna laa ilaaha illa war qabiil kuma dhihin reer alwaax ma ku jiraan laa xawla walaa quwata illa ma ku jiraan hadda reer alwaax war adina reer alwaaxa dhugta kaa galay iyo qabiil iyo dhicid iyo dagaal aqoon hadda waxbaa la kala dhacda da ii sheegaysa war waxa waaye raashinkii ayaa muxuu ahay noqday raashin aan la cuni karin
oo maxaa ku dhacayna yaa maxaa ku dhacay waxaa ku dhacay waa hallaabay waa dhacay xaguu ka soo dhacay meel sare u saarnaa laa xawla walaa quwata maya ee raashinka raashin dhacay buu ahaa oo dibadahaas kusoo baarayo yani cidina aan gadanayno yani waktigooda dhamaaday raashin waktigiisa dhamaaday wax muddo meel ku xeraysnaaday noo soo gureen ha oo raashin waktigiisa dhamaaday xeradiin baaday kuwa keenaaba ka daran raashinka raashin waktigiisa dhamaaday caana waktigoodii dhamaaday haye sokor waktigeedii dhamaatay haye muxuu ahaye sharaab waktigiisii dhamaaday nanac iyo shukulaato iyo waxyaaba waktigooda dhamaaday ayay noo soo xareeyaan ay noo keenaan ay yani nooga gadaan qaali oo xaggaasna markabkii 3 meelood 2 meel sabiidullaha lagu soo siiyaa 1 meel ay waxay ku soo qaadayaan lacag yar oo kaash ah oo anigu xaban maqal xitaa qashin ahaan nooga fogeeya in la yiraahdo maqal dadka halka laga warta wax la yaabay waxyaabahaas ka mid ah haddii maalin waad naga maqleen garan maayo meelaad aaday u akashiiq ka sheekaynayay arrimaha caynkaasa niyow ganacsatada noocaasa sidee baanu ka yeelnaa waxa waaye waxaan ka yeelaynaa horta annankaa dabaaliin ah waxaan dabaal ku nahay horta yani warshado baasta waan leenahay xitaa kuwa dawadu waa ku jiraan hadday hadda waa ku jiraan kuwa dawada dhacday dawada ugu daran ba aniga maalin dhexdaasa kaniin samboor baan soo iibsaday xoogaa samboor xun baan leeyahay adiga ka muuqataa niyo maalin kasta waxaan ku yidhi diracdii dhaweyto hindhisadaan bilaabay ilaa iminka way haysaa haye waad ka qaadan waa dirac ka dirac 3 bilood baan maraya haye 3 bilood baan iminka hindhisay haysaa haye ninkii iga iibiyaa maqan maahaane hadduu yimaado alla ilaahay labadayada mid baa maqan soo farmashig mataqaanido farmashigii waa garanayaa horta waa suurtagal inaana garanna laakiin ninkii baan bar garanayaa haddaan arko farmashi weyn aad ka siweysid labadayada mid baa maqan baan ku aniga isaga dhegayso farmashi oo weyn ee qol ah ee meel ku yaal aad ka siweysid ya ninkaan bar garanaya hal nin oo meel wax gadaayo meeqa nin gadayso 10 nin 8 nin gudaha farmashi horta aan kuu sheegay jibcaaw adigu sidoo bela abuur baatay war beledkan maanta haddii aad caaw xaafadaada u hooyato ood seexatay subax haddaad soo kacdid aqal meel usii jeedood ogeyd waxaad arkaysaa iyadoo irid kale loo sameeyo tii hore la xiray dhegayso marka dhibkaasaa beledkan yaale dhegayso marka saasaana ku kala adiga xaasi carruur ma leedahay waa joogaan maxay u joogi waayeen waxaan wadada u gooyaba soo ciyaalka maho ismali baabuurtu iyo ay kaa jeedin oo waqtigan al'aanadan wax ma dhaloosa adiga oo saan lowlow u tahay dhoola u tahay dhagoola u tahay dhiblo u tahay marka halaya waxaan ku yiri adigu sanadkeed dhalatay aniga aniga sanadkaan dhashi waa la yaqaanaa aniga waxa waaye inaan ugu yaraan 40 go-aan kaa yaraha aniga meeqaa jirtaa horta ma garatay meeqaa jirtaa hataa rabota aniga waxaan jiraa muxuu ahay konton sano miyaa jirtaa waxaad 2 sano inaad iga weyn الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأنا لما سنة وين وأفرت إسداد سنة بإجرتها أفرت يا سداد سنة أيان شراه هشا qaybtii afraad ee sheekadii filan waa dhegaystayaal intaa haynoo joogto